dhammaantiin shacabka halkan isugu yimid mas-uuliyiinta ka soo qayb gasha munaasabadan dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaan kadib waxaan idinkaga mahad celinayaa soo dhoweynta iyo ballanqaadka aad ballan qaadeen inaad ila shaqaynaysaan. waan ogahay kalsoonina waa ku qabaa inaad ila shaqaysaan haddii aan la idmo. haddii ilaahay idmo si daacad ah hagar la-aan ah ayaan uga shaqayn doonaa magaalada muqdisho inta karaankayga ah. waxaan rabaa bulshada reer muqdisho in ay igala shaqeeyaan waxyaabaha aan rabo inaan ka qabto magaalada muqdisho. waxyaabaha inaan qabto aan rabo waxaa ka mid ah isbitaalada babliga ah oo isbitaalada dowladda ah wixii shaqeeya oo dhisa waa dhisan yihiin. wixii aan shaqayn ama si u liita inaan dhiso waxaana ka bilaabi doonaa haddii aan la idmo isbitaalka lansaleti ama foolaliin la yidhaahdo ayaa ka bilaabi doonaa. isbitaalkaas anigu ma aqaano sababtoo 30 sano u duusan yahay u burbursan yahay laakiin ama arbaa siyaasada ku jirta tuunkaasaan qabaa. waxaan rabaa marka tuunkaas inuu ka baxo caqabado aan la gelin isbitaalkaas. dad wanaagsan oo asxaab ah ayaa ballanqaadkaas bixiyey inay lacagta bixinayaan isbitaalkan lagu dhisaa. waa isbitaal aad u weyn. isbitaalkaas mas-uuliyiinta halkan fadhida waxaan ka codsanayaa inay bal soo arkaan oogada kore ay ka fiiriyaan gudahana ay galaan dhinac walba ay ka istaagaan. waxaa ku jira dad waalan ayaa hadda ku jira oo dad mutadawiciin ay ku hayaan oo rag ah. waa rag waxa waalanada meesha ku jira. waxaa kaloo jooga caruur aad u il daran oo nafaqa daro hayso oo kuwa la quudiyo ah hadday ku jiraan. laakiin isbitaalkan lagu nool yahay ma isdhehaysa markaa fiirisa muuqaalkiisa. waa isbitaal aad u weyn. waxaan rabaa cid kasta oo isbitaalkaas rabtay inay dan gaara ku qabsato inay ka waantoodo ay uga tanaasusho danta guud ayaan rabaa. haddii ay tahay cid horay dan gaara uga fushanaysay ama hadda damacsan sidaas ayaan codsanayaa oo ka codsanayaa bulshada gobolka banaadir. haddii alla idmo mar dhow ayaan dhagax dhigi doonaa waana la dhisayaa isbitaalka insha allahu tacaala. waxaan rabnaa oo kale dhammaan waddooyinka burbursan oo aan dhisnayn magaalada muqdisho inaan dhisnaadna ayadan. waxaan rabnaa roobabka waxay fariisiyeen biyo laamiyada iyo meelo aan munaasib ahayn oo magaalada ka mid ah. meelahaas biyuhu fariistaan ilaa nadiif ay mar walba ahaadaan, laamiyadu ay nadiif ahaadaan, biyahana maareen loo helo oo suweyj ama bulaacad loo helo ka saara magaalada. taas arma inaan ka shaqeyno si degdeg waliba. waxaa jira meelo oo biyo qabadyo ah oo hadda wara ah oo magaalada dhexdeeda ku yaala. meelahaas waxaan rabnaa iyadoon fogeyn haddii alla idmo in loo bedelo meelo oo ubax iyo ku tallaala yahay iyo dhir
oo meelaha ciyaalka ay ku ciyaaraan iidaha iyo wax saas loo bedelo ee rabna cadaalad. waxaan rabaa magaalada muqdisho oo amni ah oo qurux badan oo waddo burbursan lahayn oo dhismo burbursan lahayn in aan gaarno oo aan halkaas aan aadaan rabaa cadaalad. waxaan rabaa dhammaan waxyaabaha aan sheegayo halkaa kuma soo koobi karo laakiin intaasaa bilow ah. barakacyaasha inaan maaraynaan rabnaa oo ayadana maarayn aan u helno. waxaan rabnaa dhammaan howlahaas oo ay kow ka tahay amniga maxaa yeele waxaasu ma qabsoomi karaan amni la-aan waad ogtihiin. waxaan rabnaa inaad waxaasoo dhan garab nagu siisiin arab. sida abwaanku u sheegay waxaan rabnaa inaan la dagaalano dadka ama canshuurta aan bixinayn ama sida xun u isticmaala inaan la dagaalano rabnaa. canshuurta marka haddii dadka muqdisho ku nool la yidhaahdo ha loo qaybsho lacag ma la gaari karnaa ma ku filan tahay? waxaan rabnaa waxay wada leeyihiin dadku inaan canshuurta aan ku qabanaan rabnaa. sidaa darteed qof kasta oo taageero dhaqaale la weydiisan lahaa inuu danta guud uga tanaasulo si aan ugu dhisno waddooyinka iyo meelaha muhiimka oo dadka ka dhexeeya isbitaallada iyo waddooyinka ay ka mid yihiin. dan kasta oo gaar ah waxaan rabaa in looga tanaasulo danta guud oo naga dhexaysa oo ma ahan danta guud aan sheegayna meel xamar ka baxsan maaha. xamar waa beledkiini marka in xamar laydin qurxiyo oo nolol fiican loo sameeyo yani nolosha aasaasiga waxyaaba laga maarmaanka sidaasaa haddii rabbeedno aan rabnaa. waxaan sidaa fariin ayaan idinkaga wadaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare. waa dhab fariintaas meel fagaara oo meediya joogaan ka sheegaya. fariintaas sidaa waxay tahay dadka muqdisho aragtidooda urursan noo soo gudbi waxa ay ka rabaan dowladda si aan ugu qabanno ay dhahay. haddii la yidhaahdo rabitaanada shaksiga ah ayagaa iska hor imaanaya saad ogtihiin. marka waxa laga hadlaayo ma ahan aragtiyada shaksiga ma aha. aragtiyada waa aragtida guud ee dadka ay rabaan. marka waxaan ku talin lahaa marka tan waa taladeydii waaye duubabka ay u horeeyaan kuwa hadda fadhiya ee dadka muqdisho degan ay leeyihiin dhammaan reer muqdisho inay talooyinkooda ay ku ururiyaan baahidooda ay ku ururiyaan ku aadan waxa ay dowladda ka rabaan. madaxda dowladda ballanqaadkaasaa idinkaga wadaa fariintaas gaarsiiya ii dheheen. marka fariintaas ma iga guddoonteen? waa gaarsiin doonaa fariintiina. waxaad ii soo qortiin oo loo soo dhiibo duubabka loo soo dhiibo. taas macnaheedu waxa waaye dilana siyaasiyiinta ha loo soo dhiibo. siyaasiyiinta kala baahiya naga karaan kala aragtiya noqon karaan saad ogtii. marka in duubabka loo soo dhiibo aday ila noqotay laakiin fariintaas gaarsii adigu noo keena layidhi. anigii marka waxaan rabaa aan geeye cid ii soo gudbisa anigaan rabaa manaha laan dadka dhan iima soo gudbi kara ma arki kara dadka dhammaantiisa. marka waxaan rabaa inaan mar kale idinkaga mahad celiyo soo dhoweynta iyo marxabayska
waxaan aniguna rabaa sidaas oo kale madaxda haddaan anigu ku imid rabitaankiina qofka idin magacaabay marka waa mahadsantahay sooma mudna arrintaasaa rabay inaan ilaaliyo